Waa taariikh wax ku ool ah marka loo eego waxyeelladii dhacday iyo xiriirka wanaagsan ee maanta ka dhexeeya Zanzibar iyo Cumaan. 1840kii ayayna ahayd markii Suldaankii Cumaan oo ahaa awowgii Suldaan Qamuus uu caasimadda boqortooyadiisa ka soo raray Masqat oo ay ku shaqayn jirtay una soo raray jasiiradda Islaamiga ee Zanzibar. Waxaana arrintaasi lagu micneeyay xeebaha qurxoon iyo istiraatiijiyadda ganacsi ee dalkaasi Zanzibar uu leeyahay. Siciid bin Suldaan oo ahaa boqorkii Cumaan wuxuu dadka reer Zanzibar markii uu soo dhexgalay ku booriyay inay beertaan geedaha cuntada lagu carfiyo islamarkaana ay taageeraan ganacsiga addoonsiga oo aad uga socday xeebaha sawaaxiliga wakhtigaasi. Mashruucii beerashada geedaha cuntada lagu carfiyo iyo weliba ka ganacsiga addoonsiga si weyn ayuu uga faa'iiday, balse taa beddelkeedii waxay urkutaalo ku noqotay dadka reer Zanzibar oo si weyn loogu xadgudbay. Balse hal mar ayay saacaddu cayn wareegtay ka gadaala markii Suldaan Qamuus uu meesha ka saaray addoonsigii awowyadii. Waxyeelladii awowyadii ay u geysteen dadka reer Zanzibarna uu ugu beddelay waxqabad muuqda iyo mashaariic horumarineed, sida inuu hirgeliyay goobo waxbarasho iyo ceelal biyoodyo ay dadka si weyn ugu diirsadeen. Kadib markii Suldaan Qamuus oo gacan ka helaya boqortooyada Ingiriiska oo xilkii boqornimo ka afgambiyay aabihii, wuxuu wanaajiyay xiriirkii kala dhexeeyay jasiiradda Zanzibar, isagoo golihiisa wasiiradana ku soo daray dad asal ahaan ka soo jeeda Zanzibar, wuxuuna jasiiradda gudaheeda ku lahaa saameyn ballaaran, wuxuuna maalgeliyay masaajidka ugu ballaaran Zanzibar iyo weliba macadka caafimaadka ugu weyn oo uu dhisay 30 sano ka hor, kaas oo ay ka aflaxeen dhakhaatiirta ugu badan ee reer Zanzibar. Haytham bin Taariq oo beddelay Suldaan Qamuus, dadka reer Zanzibar waxay ka sugayaan halka uu geeya xiriirkii wanaagsanaa ee kala dhexeeyay boqorkii asaga ka horreeyay iyo weliba halka uu u weeciyay xiriirkaasi wanaagsanaa.